saraakiisha ciidanka ammaanka dalka Kenya ayaa waxay sheegeen in saddex ka mid ah koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab xilli ay miino dhulka ku aasayeen waddo u dhaxaysa deegaanka Fafi Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ay miino la qarxday waxayna saraakiishu sheegeen in saddex ka mid ah ay halkaa ku geeriyoodeen halka afar kalena ay dhaawac ka soo gaartay qaraxa waxayna warbixintu ciidanka booliska ay soo saareen Kenya ay sheegaysaa in afartii dhaawac ahayd gaari noociisa loo yaqaan pickup ee dalka Soomaaliya laga leeyahay isla markaana laba shiro ah uu ka soo galay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan afartii dhaawac ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in loola cararay gudaha dalka Soomaaliya surdoonka dalkani Kenya ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid guul ah gacantooda ay haatan tahay mid ay isku halaageen qaraxan ayaa la sheegay in la doonayo in la beegsado ciidamada ammaanka dalka Kenya oo wadooyinka adeegsada iyo si ay roondooyin halka ugu sameeyaan wadada qaraxa uu ka dhacay ciidamada ammaanka militariga iyo kuwa booliska ay roondo ka sameeyaan haween iyo maalin si ay u sugaan ammaanka gobolka Waqooyi Bari maadaama halkaas ay tahay meel u dhow xuduudda Soomaaliya Kenya Maxamed Nuur Sugu wararka 5 Somali TV Nairobi